Ma ogtahay in shirkadda YouTube-ka ay wax ka beddeshay shuruudaheeda? Sidaa ogtihiinba, maalmahan YouTube-ka ayaa wuxuu update ku sameeyey ama uu soo cusboonaysiiyey shuruudihiisa qaar ka mid ah. Dad badan ayaa fahansanin waxyaalaha laga beddelay iyo waxyaalaha lagu soo kordhiyey. Maanta saaxiibkiin Xuseen ayaa halkan idinka sharxi doonaa. Marka waxaan leenahay soo dhawaada saaxiibadana qaaliga ah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan joogaa magaalada Gaariso gaar ahaan meel la yiraahdo Budika. ninkan aad arkaysaan waa Xuseen Cabdiraxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa saaxiibkiin Xuseen oo idin leh mar labaad ku soo dhawaada channelkeena Macaan Media. Marka maanta waxaan halkan aan jeclahay inaan idinkula wadaago waxyaalaha YouTube-ka ay ka beddeshay ayna ku soo kordhisay shuruudaheeda. Sida ogtihiinba dad badan ayaa ka warhanin mise hadday ka hayaana aanan fahansaneen waxa lagu soo kordhiyey iyo waxa laga beddelay. Marka fursaddaneeto aad ay muhiim igu tahay. Marka waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan adiga ku muhiimka haddaad YouTuber tahay, haddaad YouTube channelkaada uu yar yahay mise xataa hadduu YouTube channelkaada uu channel weyn uu yahay, labadaba saameyn ayay ku yeelanaysaa. Marka waxaan jeclahay inaan idinla wadaago waxyaalihii aan soo ogaaday ana soo baaray kadib markii ay YouTube-ka ay soo shaacisay waxyaalaha ay ka beddelayso ayna ku soo qortay boggeeda YouTube-ka. Haddii aan ku bilaabo, midda koowaad, YouTube-ka ayaa wuxuu sameeyey wax la dhahayo YouTube update term of service. Term of service macnaha waxaa waaye habka uu YouTube-ka shirkadda YouTube-ka ay ku shaqeyso ayaa la yiraahdaa term of service. Marka term of service kaas waa shuruudooyinka, macnaha shuruudooyinkaas ayay wax ka beddeshay. Marka taas ayadana waan idinla wadaagi doonaa. Marka waxaad isweydiinaysaa maxay ka beddeshay YouTube-ka mise maxay ku soo kordhisay shuruudaheeda. YouTube-ka waxay wax ka beddeshay ama ay ku soo kordhisay shuruudaheeda waxa la dhahayo monetization-ka, changes-ka. Macnaha qofka sida ogtahay YouTube-ka wax la dhahayo monetization ayaa jira. Monetization-ka macnaha waxaa loo sameeyaa qofka markuu shuruudaha YouTube-ka uu buuxiyo sida 1000 subscribers-ka iyo 4000 watch hours-ka. Marka 1000 subscribers-ka iyo 4000 watch hours-ka markii aad shuruudaas koowaad aad ka soo baxdo ayaa YouTube waxay ku aqbalaysaa in macnaha wixii markaas kadib muuqaaladaada ay xayeysiin soo gelinayso, kadibna ay ku bilaabeyso macnaha lacagta. So monetization-ka ayaa la dhahaa taas. Marka waxyaalaha ay YouTube-ka ay ku soo kordhisay ama ay ka beddeshay shuruudeeda waxaa ka mid ahay haddii channelkaada uu yahay channel yar oo weli macnaha shuruudahaas aan buuxinin, sida shuruudda 1000 subscribers-ka ama 4000 watch hours-ka. Marka waa 1000 subscribers iyo 4000 watch hours. Labadaas shuruud haddaad buuxinin, marka koowaad la iska rabo YouTube-ka si ay macnaha kugu diiwaangeliso qaybta monetization-ka, qaybta lacagta lagu diiwaangelinayo, ayaa marka YouTube-ka wuxuu wax ka beddelay in wixii hadda kadib insha Allah ay YouTube-ka xataa channelkaada haddii uu channel yar yahay oo weli shuruudahaas aan weli buuxinin, wuxuu sameyn doonaa xayeysiin ayuu soo gelin doonaa muuqaaladaada. Muuqaalada aad soo geliso ayaa wuxuu ku soo dari doonaa xayeysiin. Marka waxaad isweydiinaysaa talow xayeysiintaas ma wax lacag ayaan ku helayaa? Dabcan jawaabta waa maya. Xayeysiintaas wax aad lacag ku helaysid ma lahan, waayo weli shuruudihii maada buuxinin. Marka YouTube ayaa waxay go'aan ku gaartay xitaa maadaama xitaa channelkaada hadduu channel yar yahay oo weli shuruudihii aan weli buuxinin, in ay muuqaal xayeysiin ah ay ku soo dari doonto muuqaalada adiga aad soo geliso channelkaada. Waad fahantaa malena. Marka arrintan waa aniga dabagalay waana soo hubsaday. Waxaan marka jeclaystay in macnaha dadka badan oo YouTube-ka ku jiro ama YouTubers-ka ah
aan arrintan wax ka ogeyn ama 50-50 macnaha dad qaar ayaa waxay maqleen in macnaha lagu daraayo watch hours-ka macnaha 4000 watch hours-ka in la kordhinayo. dad ayaa waxay ku leeyihiin subscribers-ka ayaa la kordhinayo, waxaa laga dhigayaa 10,000. marka taas ma jirta, subscribers-ka lama kordhinayo. subscribers-ka wuxuu weli taagan yahay 1000 subscribers. sidoo kale watch hours-ka waa 4000 watch hours. kaliya waxaa laga bedelay faraya oo dheeraad horta subscribe-ka lacag ma ah. sax hanaga xisdina sax subscribe-ka iyo share-ka iyo like-ga intaba idinka adiga ay daawanayaan kugu dhaafay. sax haddii channelkaada channel yar uu yahay oo weli shuruudihii 1000 subscribers-ka iyo 4000 watch hours-ka aan weli buuxinin, ayaa marka YouTube-ka ayaa waxay go-aan gaartay in channelkaada muuqaalada aad samaysid in xayisiin lagu soo gelin doono. xayisiintaas oo wax lacag aada ku heli doonin. marka arrinta ayada waxay soo ay bilaabatay horta Maraykan ay ka bilaabatay. Maraykan taariikh 18 bishan hadda aan ku jirno November 18keeda ayay bilaabatay. marka waxay dhaheen with immediate effect in America. marka with immediate effect in America macnaha waxaa laga wadaa maalinta ayada ay soo geliyeen update-ka ayna ahayd taariikhda 18 bishan hadda November aan ku jirno, ayaa marka waxay dhaheen Maraykanka wixii joogo maalinta ayada ayay u bilaabanaysaa in macnaha muuqaalada xayisiinta lagu soo dirayo channel-yada yar. channel-ada waaweyna ayagana oo horan loo soo gelin jiray advertisement-ka ayagoo lacag ku helaya, ayadana marka maxay saameyn ay ku yeelatay, ayadana dib ayaan idinkaga sheegi doonaa markaan idin dhameeyo arrintan ayada hadda channel-ada yar aan weli shuruudaha aan buuxinin. marka sida aad ogtihiinba marka channel-ada yaryar ayada hadda ma bilaabanayso muuqaaladan ito wixii macnaha Maraykanka ka baxsan. wixii Maraykanka ka baxsan muuqaalada waxa advertisement-ka ah channel-ada yaryar aan shuruudaha weli buuxin waxaa la soo gelin doonaa, waxay dhaheen 2021. marka wax hadda ay macnaha la soo gelinaya ma aha. waxay dhaheen Maraykanka wixii joogo ayaa hadda la soo gelinaya ay ka bilaabatay, laakiin wixii Maraykanka ka baxsan oona channelkiisa yar yahay oo weli 1000 subscribers aana gaarin iyo 4000 watch hours-ka ama shuruudahan weli buuxinin, ayaga muuqaaladooda waxaa advertisement-ka la soo gelin doonaa wixii ka bilaabato 2021-ka adiga ilaa iyo bishii 6. marka sidaas ayaad u ogaan doontaan channelka yar waxaa la soo gelinayaa 2021-ka bishii 6 ilaa iyo meelahaas. laakiin channelkaada hadduu channel oo weyn yahay ayadana maxay horta intaan channelka weyn ayada saameynta ku helaysa intaan gelin waxaan rabaa inaan idin sheego. marka adiga marka maxay kula tahay, maxaad is leedahay arrintan ito YouTube-ka ay sameeyeen, fikradaada maxay kula tahay, ma saameynta ay kugu yeelanayso maxaa ka mid ah? marka commentiga ayaad igu soo sheegaysaa, anna waan kaga soo jawaabaya sida macnaha aan fikradeyda u arko. laakiin adiga waxaan ku weydiinayaa daawada haddana daawanaya fikradaada maxay kula tahay, sidee u aragtaa shuruudan ama update-kan cusub ee kusoo dartay YouTube-ka ayna soo gelin doonto xayisiin muuqaalkaada asigoo hataa weli shuruudihii aan buuxinin wax lacagna lagugu siin doonin. marka taas waxaan jeclahay inaad iga soo jawaabi doonto. marka waxaa kaloo marka okay, sababta ay YouTube-ka ay u sameynayso arrintan ayaa waxa ay tahay waxaa jiraan channel yaryar ama kanalo yar oo waxaa jiraan oo weli shuruudihii aan buuxinin, haddana muuqaalada ay soo geliyaan views fiican laga helo ama dad badan ay daawadaan. qof waxaa arkaysaa muuqaal uu soo geliyey laakiin shuruudihii weli aan buuxinin, hadduu ay ka tagi wayso 1000 subscribers-ka wuu dhaafay, laakiin shuruudihii kale oo watch hours-ka weli muu buuxinin. muuqaaladiisana waa la fiirsadaa, hadday noqoto 10,000, hadday noqoto 20,000, hadday noqoto 5,000. marka YouTube-ka ayaa waxay u aragtay in halkaas uu ka jiro fursad ayaga dhankooda faa'iido u keeni karo. marka maadaama kanaladaas ay muuqaaladooda la daawanayo dad ay tiro fiican ay daawanayso, ayaa YouTube-ka wuxuu u arkay inay fursad tahay ayna ka faa'iidaystaan, wayna ka faa'iidaysteen. sidaas ayayna muuqaal xayisiin usoo gelin doonaan oo ayaga faa'iido ugu ah ayna ku heli doonaan lacag.
laakiin su-aasha la isweydiinaya waxaa waaye adiga haddii haddaba channelkaada uu yaryahay laazim waqti ay qaadanaysaa channelkaada hadduu yaryahay intii macnaha shuruuddaas aad ka gaarayso kadibna youtube-ka uu kuu sameynayo monetizationka haba ahaataba laazim way qaadan lahayd waqti. Marka waxaa fiican inaad iska samarto aadna hooshii aad u malaysay inay macnaha youtube-ka uu ku khayaanayo mise wax oo lacag adiga aad soo shaqaysto uu kaa dhacayo adigoona sidaa u fikiraynin. Marka waxaa fiican inaad adiga dadaalkii aad sameynaysa inaad sii sameyso howsha meeshaada aad kasii wado. Markaad gaartidna shuruudaha aad kasoo baxdidna markaas way YouTube partner programka ayaa lagu darayaa kadibna waa lagu aqbalayaa monetizationka ayaa lagu siinayaa sidaas ayay lacagta kugu bilaabanaysaa. Marka haddii aan marka adiga ha u arkin wax macnaha caqabad ah hore u soco sida aad muuqaalada u gelinayso usoo geli ha iskaga soo darstaan muuqaalkooda xayisiinta ilan adiga waqtigaada markay gaarto oo shuruudihii ka soo baxdo hore u soconaysaa monetizationkana waa lagu aqbalaya. Marka maxay marka saameyn ku yeelanaysaa channelada waaweyn ama YouTube channelska waaweyn? Haddii aad isweydiiso YouTube channelka weyn ama qofka subscriberska badan oo shuruudihii mar hore gaaray sidaa ogtihiin ba xayisiin ayaa loo soo diraa muuqaalada xayisiinta ay soo gashadaan sidaas ayayna lacag ku helaan waayo ayaga mar hore ayaa YouTube partner programka lagu daray mar hore ayaa monetizationka la siiyey mar hore ayayna lacagta ay u bilaabatay. Marka waxaas dhihi kartaa haddii ay YouTube ay heshay muuqaalo kale ama channelyo kale ay muuqaaladii advertisementka ay ku darsato mise ay gashato marka waxaa ka imaan karaa in kanaalada waaweyn advertisementkii loo soo diri jiray mise ay heli jireen inuu hoos u dhac ku imaado waayo marka hore YouTube may haysanin fursadda hadda ay haystaan fursadaas oo ah inay muuqaalada advertisementka ay ku darsan karaan channelada yaryar oo weli shuruudihii aan gaarin ayagoona lacag ka helayo qofkii channelka iska lahaana waxba ka heleynin. Marka YouTube-ka channelka weyn haddii uu 2 xayisiin ama 3 xayisiin uu soo diraayo channelkiisa ama 4 xayisiin uu soo diraayo waxaa suurtagal ah in 2 kaliya loo soo diro labadii kalena ay gashadaan channelka oo yar oo macnaha oo views kistoona laga daawado ayagana lacag ku helayaan. Marka waxaan dhihi karaa kanaalada waaweyn ama channelka weyn asagana saameyntaas ayuu ku yeelan karaa waayo waxaa suurtagal ah in advertisementkii adiga lagu soo dirayay aad channelkaada aad ku helaysay lacagta xayisiinta ama ha ahaato 2 ama 3 ayaa waxaa macquul ah ama inuu hoos u dhac ku imaado waayo channelka waxay YouTube fursad u heleen in ay shuruud wax ka bedelaan wayna bedeleen in ay channelyaashaas yaryar ay gashan doonaan muuqaaladaas. Waxaan maleynayaa inaad fahanteen muuqaalkaas waa muuqaal muhiima aad iyo aad ayuuna muhiim u yahay waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen cidii aana fahminna weli muuqaalkaas kolleyto waxaad igu soo qori kartaa wixii su'aal aad qabto qaybta commentiga anigana waxaan jeclaystay inaan wixii macnaha aniga aan soo ogaaday inaan idinla wadaago asxaabteena qaaliga waxaa kaloo idinka ilooway waraaq qoraal ay soo gelinaya jirtaa bogga YouTube-ka waraaqdaas ayadana waxaan idin soo gelinayaa shaashada ayaad ka arki doontaan haddii aad rabtana ciwaanka aad halka ayada ay ku qoran tahay warqadda ayada ay soo geliyeen YouTube-ka page-kooda. Marka asxaabta waxaan idinka codsanaynaa channelka inaad subscribe noo saartaan aad share gareysaan aad la wadaagtaan asxaabta kale si ay uga faa'iidaystaan ayagana update-kan cusub ay soo gelisay YouTube-ka. Marka sidaas ayaan idinka tegayaa waxaan rajeynayaa insha Allah kulan dambe oo xiiso ah idinkoo nabad qabtaan iyo anigoo nabad qaba inaan isku soo noqon doono insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.